maanta way taariikhdu tahay 31 bishii 10aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq. حسن علي معلم بر حسن بوي abtigii sayid cali aadan nuur steam boy ayaa ku tashkiiliyay kamid ahaanshaha kooxda argagixisada ah. Mubarak ayuu kaga biiray al-shabaab 2018 abtigiisa oo ahaa farsamayaqaan dabka baabuurta ah ayaa u soo jeediyay kamid ahaanshaha kooxda argagixisada ah iyo inuu isaga tago dukaan sandaqad ah uu ka maareyn jiray nolosha. ciyaal xaafadeed diga gawaarida qaraxyada ayuu ahaa waxa uu lahaa astaanta ciyaal macnamo leh oo u sahli jirtay inuu ka gudbo baraha amniga ee Muqdisho. waxa uu darawalnimada ku bartay gawaari ay ku raran yihiin walxaha qaraxa. shaqadiisa ayaa ahayd ku simida ismiidaamiyaha iyo uga tagista gaariga goobaha dadweyne oo ay maleeshiyadu qarxiso. Oktoobar 26 2018 ayuu shil ku galay gaari fiilder cadaan ah isgooska Kaawaguday ee suuqa degmada Wadajir. waxaana intii loo kala garqaaday gaariga qaraxa uu watay iyo bajaajtii uu shilka ku galay marqura dhacay qarax Muqdisho laga wada maqlay. ilaa 12 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac ka badan 7 qof ayaa la diiwaan geliyay. 14 September 2019 ayay maxkamadda ciidanka ku xukuntay dil toogasho ah Xasan Macalin Barre. xilligaas waxaa xabsi daa'in loo diray Sayid Cali Aadan Nuur Steam Boy halkay maxkamaddu xorriyadiisa siisay Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ oo maxkamaddu wax dambiya ku haysay. Isaaq Khayrow Aadan Masar diisoor ayuu al-shabaab uga biiray 2014 waxa uu ka tirsanaa koox arbushaad weerar ah ka sameysay Toorotoro oo dhiigle bariire Sabiid Yacaano leh Yaqbarweyn Gulweyn Afgooye Beledweyn Sablaale Saakow Baraawe Janaale iyo Muqdisho. marka laga yimaado qasaaraha weeraradaasi ka dhashay waxa uu ka mid ahaa koox al-shabaab u xil saartay gubista gawaari xamuul ah oo urarna ganacsiga reer Hiiraan. waxauna ahaa gacanta jantaha iyo basiinka qabadsiisay gawaari dadweyne oo raashin siday tiradooduna ay gaaraysay 14 gaari December 2017. Isaaq Khayrow Aadan Cali waxa uu Muqdisho ka dhex tuuray 9 bam waxauna ka qayb galay dilal gacmo ah. Yaaqshiid Shibis Bondari Wadajir ayuu bambooyin ku tuuray. waxauna nolosha u aqoonsaday Faarax Cabdulla Cariif oo booliiska laanta Suubacaad ka tirsanaa meeshanteedii 2020. sidoo kale waxa uu fuliyay dil gaadmo ah oo lagu dilay Allah u naxariistay Axmed Cumar Calasow oo military ka tirsanaa dilkaas oo ka dhacay Garas Baaley January 2020. maxkamadda ciidamada ayaa xukun dil ah ku riday Khayrow July 2020. Nuur Ibraahim Mahad Alle Nuur Weyne waxa uu ka mid ahaa ciidamada gaarka ee VIP-da booliiska waxaana looga saaray isticmaalka daraagiska sida baan loogu sarqaamo. waxa uu lumiyay hub ay dawladdu lahayd kadib waxa uu aaday Beledweyn waxaana uga sii gudbay hulka buundo oo uu ka qodan jiray macdanta. intii uu halkaasi jiray ayuu soo xirtay dhiil uu kula shaqeynaya al-shabaab laguna dilay Allah u naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii amniga Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi. gudoomiyihii Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale Cali Axmed Guura Cali Qoyane iyo Nuur Weyne waxay ka wada shaqeeyeen dilka marxuum Rashiid. waxayna ahaayeen qaraabo dhow laakiin waxa is jira isriix maamul oo aan laga xigan marxuumka geeriyooday. gasac qaraxa oo soo wada Beledweyne ilaa iyo Maxaas ayuu u geliyay meel ku casriyay marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi iyo koox la casriyeyn jirtay. kaliya $200 ayuu ku badashay inuu nolosha u aqoonsado marxuumka Nuur Weyne. Oktoobar 30 2019 ayaa lagu xukumay dil toogasho ah. waxaa xilligaasi isna dil isaga oo maqal lagu xukumay Cali Axmed Guura Cali Qoyane halkay maxkamaddu ku xukuntay amrigaha ku furto gudoomiyihii Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale. July, September iyo Oktoobar 2019 xukunna dil ah oo ku dhacay kadib maanta oo 3 sano laga jooga ayaa laga oofiyay xadkii qasaasta ahaa Xasan Khayrow iyo Nuur Weyne sida warbaahinta uu furinta kadib u sheegay Maxamed Cabdullaahi Khaliif ku-xigeenka xeelaliyaha ciidamada qalabka sida. isla markaasna uu gaari ay ka buuxaan walxaha qaraxa geeyay suuqa Kaawaguday ee degmada Wadajir kadibna uu ku qarxiyay dadkii shacabka ahaa ee ka adeeganayay suuqa. taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11aad 2018. qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 12 ruux isla markaasna bam gacmeed uu ku tuuray laanta Suubacaad ay sababtay dhimashada marxuum Lawa Alif Labool Faarax Cabdulla Cariif
miino ah geeyey degmada Maxaas uuna ku qarxiyey marxuum Rashiid Cismaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas taariikhdu markay ahayd 19 bishii 4 2019 maanta way taariikhdu tahay 31 bishii 10 2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada xeerlaaninta ciidamada qalabka sida ayaa fulinta xukunkan goobjoog ka ahaa waxaana fuliyey qasaastan cutubyo gaar ah oo ka tirsan Haram Cad kuwaasi oo dhagarqabayaashan ka dejiyey culayska dhiigii ay galeen Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.